aqoontiisa baro lagama maarme hamogaanin taariikhda macallin leeyahay hamogaanin taariikhda macallin leeyahay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عشر كني وعشر رضي أن قلنا أرضي ذي فنفرض هيد وأنا قيبتي سلبات عشر كي كهريي أن بحيي أيو الله الصعداء وأنا قيبتي لبعض عشر كي هره موضوع إني أيا إنه الصعداء أينو كجور رميني إلى طغاة العالم عالم كان أينو كلنا الله وحصام ري دكتاتره يعني من كبري أو قوقي إلى هنا وما شك الصاري وإناركنا ما أنتنا عالم كهلك ومريو كبركي يحد قدبكي هيرك وقالي واتو إلهي وكتوابي سبحانه وتعالى إيو كيني تصينا لمن كي كبري إنا رميش مانتا وحاوداني كل هين عشر كني وحو تسالوي هي عيد والبا ويسكو دايدا إناي كبرتا أما أي قاغضو halka ay ku dambeyn doonto cilibtiisa iyo noloshiisa dambe abwaanku waxa uu soo cabiray tixda koobaad inuu yahay gumaystuhu shaqadiisa had iyo jeer iyo tilmaanta uu ku tilmaaman yahay inay tahay dib u socodnimo iyo shacabka noloshooda uu baabiyo haddaynu halka ka sii anba qaadno abwaanku isagoo tilmaamaya gumaystaha wuxuu waligiiba uu wadaba oo ummadda uu cadaadiyo xaaladiisu waxay ku dambeyn doontaa tixda afraad abwaanku waxa uu cabirayaa ruwaydaka laa yakhdicannaka alrabiicu wasaxwa alfadaa'i wadawa asabaax ruwaydak ukaadi لا يخدعنك ككتوم الربيع كلمة الربيع وحا الله استعمالها جوجه وهذا يتشير أمده مركة تيلال أضاق يا أباراء صومران وحا الله إلى هذا حالده كريل إيو وحي كتران دقنا شيلان مركة والروب كودو حالده وحي نغضان حالة دقن ودadkii uu nafisaa haraadkii abaarihi kulaylkii wixii oo dhan ayuu guga ayuu jabiyaan baroobku marka abwaanku waxa uu ku cabirayaa shacbigan hantidiisa iyo xoolihiisa uu iska guranayo iyo sida uu doono uu garayo aamusnaantan ay ka aamusan yihiin ayuu leeyahay ha u qaadanin inay arrintu ay sida ahaanayso markaa ku dagmin weeye ruwaydaka ukaadi laa yakhdacannaka ku dagmin alrabiicu deganaashiyaha xaaladahan degan ha ku dagmin wasaxwa alfadaa'i hawadan saafiga ah iyadana ha ku dagmin wadawa asabaaxi maalinta iyo ilayskeeda iyo cadceedan uun iska soo baxaysa nabadgelyada intay ku soo baxdo haddana ku dhacaysa iyadana ha ku dagmin oo ha isdhigan waxbaa soo socdee meesha waxbaa soo socdee ha isdhiganin oo ha ku dagmin oo ha isodhanin shacbigan weligaa iyo allaha madaxa ayaad kaga fadhihi doontaa oo waad iska guran doontaa ruwaydaka ukaadi laa yakhdacannaka ha ku kadsoomin alrabiicu deganaashiyaha xaaladahan degan wasaxwa alfadaa'i hawadan saafiga ah iyo dhulkan saafiga ah ee ballaaran wadawa asabaaxi iyo ilayska maalinta iyo deganaashiyaheeda ha ku dagmin
tixda shanaad abwaanku waxa uu cabiraya isagoo ka warramaya shacbiga inaanu ahayn shacbi sida la doono laga yeelan karo aamusnaantiisan iyo hadal la'aantani waanu u qaadan inay tahay dad laga adkaaday oo aan xarakaad samaynaynin ayuu abwaanku waxa ku cabiray fa fil ufuq jihooyinkeedan alraxbu jihooyinkeedan waasica ah dhulkan aad qabsatay iyo ummaddan aad qabsatay jihooyinkeedan balballaaran ee waasica ah waxa ka soo socda hawla dhalaam waxa ka soo socda cabsiyo madmadow waxbaa soo buuxaya waxbaa soo socda waxbaa kugu soo maqan ee ha isdhiganin oo ha ku kadsoomin oo ha moodin dadkani inaanay waxaniba aanu dareenba inaanay lahayn fa fil ufuqi jihooyinkan balballaaran alraxbu ee waasica ah waxa ka soo socda hawlu dhalaam mugdiyo cabsi leh wa qasfa rucuudi onkodyo danam wata wa casfa riyaaxi dabaylo duufaanla wata isagoo markaa abwaanku uu ku cabirayo shacbiga iyo kacdoonka ay soo wadaan iyo dagaalka ay kala hor imanayaan ayuu ku cabiray mugdiyo waaweyn oo cabsi leh onkodyo iyo danam wada socda dabaylo iyo duufaanlo waxbaa kugu soo socda buu leeyaho ummaddani kacdoon bay samayn doontaa way kaa hor iman doontaa dabadeedna ba'aaga iyo hooggaaga ayaa meesha ka bilaabmi doona fa fil ufuqi raxbu jihooyinkan balballaaran waxa ka soo socda hawla dhalaam mugdiyo cabsi leh wa qasfa rucuudi onkodyo iyo danam iswata wa casfa riyaaxi dabaylo iyo duufaanlo adag ayaa ka soo socda ee waxba ha isdhiganin tixda lixaad abwaanku waxa uu tilmaamayaa xadaari ka digtoonow ayuha almustacmar gumaystayahow fataxta waxaad furtay alramaad allahiib dab baxaya oo ololaya ayaad shidday ee iska ilaali dab ninkii shidaa dambaskiisuu ku gubtaa sidaa daraaddeed ayaa waxa uu leeyahay abwaanku isagoo u digaya gumaystaha iyo cadowga iska jir oo iska ilaali xadaari ka digtoonow fataxta waxaad furtay alramaad allahiib dab baxaya ayaad shidday ee iska ilaali waman yabdar qofka beertaa ashawka qodax qofka beertaa yajni wuxuu goostaa uul aljaraaxa dhaawaceeda oo ninka balaayo beertaa dee ma helayo wanaag heli maayo oo haddaad qodax iyo tiin iyo balaayo aad beerato dee waxa kuu taallo walaadna inay ku mudmudaan kolba ay meelay ay kaa dhaawacaan xadaari ka digtoonow fataxta waxaad furtay alramaad allahiib dab baxaya ayaad shidday ummaddan qalbiyadooda dab iyo olol baad ku shidday dab ninkii shidaana isaga ayaa ku gubtaa waman yabdar qofka beertaa ashawka qodax qofka beertaa yajni wuxuu gurtaa aljaraaxa dhaawaceedii allagawiyaat aw alkalima macnaaha haddaynu isku dayno inaynu ka warranno erayada ku jira tixda ruwaydak eraygaasi macnihiisu waxa uu noqonayaa mahlan ukaadi alrabiicu oo aynu tilmaamnay inuu yahay guga almuraadu bihi balse waxaa loola jeedaa halkan iyadaa huduu'a alaxwaal xaaladaha deggan ayuu abwaankula jeedaa alsaxwu waxa weeye micnaheedu safaa waa shayga saafiga ah ee aanay waxbaba aanay ku khaldoonayn alfadaa kelimadan
الفضاء معناه وحا ولقنيا المكان الواسع وقوبتا واسعة بلارن يعني عليلي قاهين الرحب كلمة دي وحا يتلماميسا الواسع يضوى بلارك هي واسعة كلمة الهول معناه وحا ولقنيا المخافة وعبسدة وشيء أرجع حي عبسدة له أيال إلى ذا هول قصف الرعود معناه وحوي صوتها الشديد لو وقع على يدرن أنكت كي يدرمك وليه أيال إلى ذا قصف الرعود صوتها الشديد ولو وقعاتك بني آدم كانوا قاضي كرين عصف الرياح معناه وحي تلماميسا شدتها شدة الرياح طبيلها الدرن الطوفان لذا وحول البقالة أيال إلى ذا عصف الرياح اللهيب معناه وحوي النار المشتعلة دبك أولولا أيال إلى ذا اللهيب خضينو هلكا كذا قدبنو كلماتك يا رياض يا معناه دي بلاين اسكدينو إننا قادلنا شرحودي تحدى أفراد أبوانك وحا وقتلماميا أيها المستعمر قوميستيه تمهل أكاذي لا يغرك هكو دقمنو هكو كتسومن هدوء الشعبي دقناشيها شعبك هكو دقمن تحدى سناد إن أرضنا الواسعة للكينا البلالني تغمرك وحكسو برقرية وكسو صعدا بأهوال الشداد حالة أدالك أيها كسو صعدا وعبسله والغوصو صعدا وعندما دي بسوك بهذين يا شعبك وهبين مدوبة اللي قسوك اللي دونا دبدا النوى لو قبصان دونا شرح اللحاد إننا نحذرك وحنك قدقينا أيها المستعمر من ثورتنا كعضونك يقايانك قدقينا شعبك يكعي دونان محايا لي فإنك أذيق لا تراها ما ركتد لأنها محايا لي في قلوبنا قلبك يقا أيو كترا كعضونك أنك أنك قادي دون له يعلى ودى أنك وهينه وإنك أذيق تشعلها أذيق واحد سدي قلبك يقا لحديثة بما فعلت وحيات جيستي أو من شر لباتي وحي الله أي قلبك يقا كبحيا أو حوي أبوان قالك وحو كعبري سيدي فلان كيري وكله أوغاديدو أولم أوغاديدو يدل أمي با كبحا marka uu tilmaamayay oo inanta uu cabanayay jacaylka heerka uu marayo waxa uu tilmaamay inuu gabigiisuba uu maxay uu siraadanayo qolada abwaankanina waxa uu tilmaamay cadaawada iyo xumaanta uu hayo gumaystaha inuu qalbigiisii uu ku shiday dhibaatooyinka uu shacabka u geysanayo iyo maatida inuu dab uu ka baxayo dhibaatada uu geysanayo awgeed إننا نحذرك وحن كاغدغينا من ثورتنا كعضون كيغايان كاغدغينا فإنك أذيق لا تراها ما ركتد لأنها محايلي في قلوبنا قلبك أيان كوهيسنا وإنك أذيق تشعلها قلبك يغا واحد كشد النار بما فعلت من شر لباتويك وحي الذي أدقيستي أوجد المناقشة سؤال اللباد هلكان inoo taala darsigii hore su'aal bay nala socotay su'aashan labaad waxay noqonaysaa ardayow laga doonayo adiga inaad ka soo shaqeyso bima yuhadhiru ash-sha'ir abwaanku muxuu ugu digay al-isticmaara gumaystaha muxuu ugu digay la soco qaybta saddexaad ee darsigeenan ila tuqaati al-aalam wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh روح أبوتيسا برو لا يلا